haddii aad ku nooshahay koonfurta King County garoonka diyaaraduhu waa qayb weyn oo ka mid ah noloshaada maalinlaha ah waad maqashaa waad isticmaashaa xataa waxa laga yaabaa inaad ka shaqeyso garoonka SeaTac waayo waa deegaankeenna waxaad sidoo kale ogtahay in gobolkeenu si degdeg ah uu u korayo dad badanna ay sanad walbaba sii marayaan garoonka diyaaradaha maadaama uu yahay meel ay ka duulayaan in ka badan 8 milyan oo qof oo ku nool gobolkeena garoonka diyaaraduhu wuxuu u baahan doonaa inuu adeeg siiyo 1 milyan oo qof oo dheeraad ah oo la rajeynayo inay u soo guuraan Puget Sound marka la gaaro sanadka 2035 koritaankaasi wuxuu cadaadis saarayaa xaafadaada gaadiidku haddii uu bato dadka iyo walwalkuba way badanayaan arrintani dhammaanteen way ina taabanaysaa haddii aynu garoonka ka duulayno ka shaqaynayno ama meel u dhow aynu ku noolnahayba si safarku uu ugu noqdo mid u wanaagsan oo u fudud qof walbaba waxaan ku qasbannahay inaan samayno isbeddello waxaan u baahannahay qorshe cad oo lagu maareynayo kobacan sidaas daraaddeed waxaan abuurnay mashruuca qorshaha guud ee garoonka diyaaradaha ee muddada dheer amaba SAMP si markaasi aan u caawino garoonka caalamiga ah ee iyo bulshadeenna si ay ugu diyaar garoobaan mustaqbalka waxaan diiradda saaraynaa horumarno waaweyn oo dhinacyada gudaha xadka garoonka hadda jira sida dhisidda terminaalka labaad ee leh 19 albaab oo cusub iyo casriyeenta wadooyinka deegaanka ayada oo lagu maalgelin doono dhaqaale dhan 40 milyan oo dollar si markaas wax looga qabto ciriiriga gaadiidka mashaariicdan 31 ah ee muddada dhow waxaa loogu talagalay inay garoonka ka caawiyaan in uu qof walbaba si wanaagsan uu ugu adeego iyo saameynta tayada hawada iyo biyahaba lana fududeynayo ciriiriga gaadiidka ee xaafadaada ujeedadeenu waa inaan safarka lagu imaanaya iyo kan looga sii gudbayaba garoonka uu noqdaa mid ammaan leh iyo mid waxtar badan u leh qof kasta oo isticmaala ka shaqeeya ama meel u dhow ku nool maadaama dad badani ay u soo guurayaan gobolkeena si ay ugu noolaadaan amaba ay u soo booqdaan waxaan rajaynaynaa in ay soo kordhayaan rakaab iyo duulimaadyaba waxaan samaynaynaa intii karaankeenna ah si aan u yareyno saameynta dheeraadka ah ee duulimaadyadaasi waxaan sidoo kale ognahay in isbedelada la soo jeedinayo ay si toos ah u saameynayaan deegaankaaga sidaas daraaddeed hay'adaha federaalka ah ayaa dib u eegaya qorshaheenna si loo hubiyo in ay buuxiyaan heerarka deegaanka gobolka iyo qarankaba hadda waa markeenii aan muujin lahayn sidoo kaleeto aan buuxin lahayn heerka gobolka Washington isla markaana aan kula socodsiino annaga oo diyaarinayna warbixintan saameynta deegaanka amaba EIS waxaan rabnaa in horumarnadan ay ka turjumaan waxa adiga ku muhiimsan sidaas daraaddeed ra'yigaagu waa lagama maarmaan laga bilaabo May 22keeda 2026 waxa aad dib u eegi kartaa qabyo qoraalka SIBA ee warbixintan saameynta deegaanka waxaadna nala wadaagi kartaa ra'yigaaga xogtani waxa ay ku diyaarsan tahay luuqado badan si qof walbaba uu qayb uga noqon karo si fudud u gal internetka email ama warqad boostada ku soo dir ama qayb ka noqo kulamada doodaha furan ah iyo seminaarada la qaban doono bisha June noo soo sheeg qaybaha qorshaha ee aad taageersan tahay kuwa aad walwalka ka qabto ee ku salaysan natiijooyinka daraasaadka SIBA EIS iyo waxa adiga kugu muhiimsan guuxa tayada hawada ciriiriga marinada gaadiidka ama wax kasta oo kaleeto faala kasta waxa ay qaabeynaysaa talaabada xigta ee dhismaha madaarka iyo deegaankaaga wax loogu soo kordhinayo waxaan rabnaa inaad ogaato haddii ay jiraan waxyaabo muhiim ku ah ee aanan lagu soo darin qabyo qoraalkani tani waa fursadaada aad wax ugu biirin karto qaabeynta aayaha saameynaya ama quseeya bulshada ee koonfurta degmada King codkaaga runtii waa u muhiim geedi socodkan markaad nala wadaagto soo jeedintaada faahfaahsan si qoto dheerna looga fakiray waxaad gacanta ka geysanaysaa gundhiga go'aamada saameyn doona dhammaan xaafadeenna hadda iyo sanadaha soo socdaba aan si wada jira u dhisno mustaqbal wanaagsan